doorasho qof iyo cod dalka looma wado inta iga hooya oo iga qoran doorashada loo socdaa waxa weeye sano iyo dhowr bilood baa hartay markii la joogo mushaarka xunka baad qaadataa military baa tahay nisha tahay amarka dawladda qaado sidaana soo yeel xoogaagaana qaado axmed madoobe wuxuu yiri diyaar baan u ahay dawladda inaan wada hadalo madaxweynihiina hadal uma jeedo wuxuusan ugu jeedin wuu og yahay inuusan gar helin madaxweyne axmed madoobe wuxuu yiri maya madaxweyne doorashadaasu ma billa ma samaysmi karto looma dhamma nabad ma haysato sharci ma haysato kalsooni shacab ma haysato suuragal maaha doorashadaasu inay dhacdo shirkiina wuu ka soo baxay axmed maxamed islaam doorashadiisii uu qabsaday horay buu u socday dowladdii waxay tiri sharci maaha waxaa marka igu soo dhacday markii halkaa joogto sharci maaha hanta dowladdu tiri iyo doorashada axmed madoobe maxkamad islaam iyo mid gaalo qoor iyo xero leh haddii la geeyo oo axmed madoobe ku doodo shalayto doorashadayda dhacday waxay u dhacday sidii shalayto madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu igu taageeray xasan sheekh maxamuudkii 2019 yaa markhaati ii ah doorashadaydu siday u dhici jirtay inay u dhacday xasan sheekh maxamuud baa iga markhaatiya maxkamad muslim iyo gaal intaasaaba ku filan oo markhaatigii siday ugu dhici jirto shalay uu raalli ku ahaa xasan sheekh maxamuud baa markhaatigeeda ku filan waxa weeye anaa sana ku siinaya oo inaad aniga sana isiisaa ma dastuurka qarankay ku taallaa ma kaygay ku taallaa maxaad aniga sana ii siinaysaa intaad marka adigu sana hadiyada isiin lahayd madaxweyne 5 sano yaa sidii aad igu taageeri jirtay jubbalandna ay isku dooran jirtay 5 sano laygu soo dooranaya halkaasaan aadaya ma halkaasaad aaday waa kula dirinaya dagaal foolxumo oo aad iyo aad haddii military madaxda militariga Soomaaliyeed nin walba aan huba in lagu xukumaha isdil sida dagaalkaas u foolxumaa siduu u qaabaraa siduu maguulaysta dhaba dagaalkaas u ahaa ciidankaas haddii sidii military iyo dowlad la arki jiray nin walba madaxdiisa waxaa la dhihi lahaa bastoolad soo qaado kill yourself halka adigu xabad isaga dhufo maxkamad military saasay ku xukumi lahayd foolxumadaas baa dhacday intaasoo markay dhacday doorashadii qof iyo cod oo la sheegayay doorasho qof iyo cod dalka looma wado inta iga hooya oo iga qoran doorashada loo socdaa waxa weeye sano iyo dhowr bilood baa hartay markii la joogo meelo kooban oo la heli karo oo la diyaarsaday inay doorasho ka sameeyaan hay'adda nisa oo kaliya hay'adda nisa ayaa doorashadaas qabanaysa iyada codaynaysa dawacay afku dufalay weeye dad yar oo taagtaagan oo la waayay inta la sawirto yaa subax dambe waxa soo baxaya doorashadii waxa ku guuleystay boqolkiiba 95 xisbiga madaxweynaha waxa weeye marka doorashada dhacaysa amnigu maxagee ka dhacaysa amniga ku dhacaysa kalsoonida shacabka ummadda Soomaaliyeed gaaro maanta doorasho ku qabsan kara xagee bay taala inay marka doorashadaas u socoto hadeertaan dadku wuxuu aaminsan yahay dawladdu inay baar dheer iyo inay u tagtaan rabto inay dagaal ku qaado Kismaayo aniga ma aaminsan inay sidaas tahay 400 kiiloomitir oo baar dheer ilaa Kismaayo oo dhulkan anugu arkay oo ii muuqda si uu yahay adeer dawlad xoog badan yaa dagaalkaas inta halkaa ka duusha inay 400 kiiloomitir Kismaayo qabsatay heli karta laakiin waxa socdaa sida ma go'aan waxay dawladdu qaadatay inay xukun military iyo nisadii aan sheegahayay gada ku qabsato barina doorashadii nisa qaban lahayd gada loogu qabto markaati waxaa ka intiina reegalaati
maxaa keenay in degmo walba dhiisi looga dhigo loo magacaabayo nin ama nisa ama nin military nin military in la magacaabayo degmooyinkii waad ogtihiin oo maxaa loogu magacaabaya mushaarka xunkaa baad qaadataa military baa tahay nisa tahay amarka dowladda qaado sidaana soo yeel xoogaagaana qaado gada waxa ka socda sida weeye duulaan ma masalantigii baynu joognaa marka degmo walba oo gada ku taala nin military iyo nin nisa xukumayo oo loo magacaabayo waxaas waxa weeye marka nin walba uu dantaada ilaalso hadeertaana carrigaaga joog sida gada ka socota sida weeye duulaan Kismaayo lagu yahay ma waa xukun military oo nisa oo Xasan Sheikh u qaban doona wax aan doorasho ahayn iyagu inta warqadaha buuxiyaan sawir yarna la qaado halkaasna uu ka soo baxo madaxweyne Xasan Sheikh anigu waxaan oran lahaa madaxweyne 70 jir baad aqoonyahan baa lagugu sheegay wadada aad haysaa sax ma ninka la yiraahdo day wuxuu taagay oo mar walba taagnaa madaxweyne waxaan diyaar u ahay Soomaaliya markhaati ka ahaada waxaan diyaar u ahay dowladda iyo anagu fagaare inaan ku wada hadalno Axmed Madoobe wuxuu yiri diyaar baan u ahay dowladda inaan wada hadalno madaxweynihiina hadal uma jeedo wuxuusan ugu jeedin wuu ogyahay inuusan garhelin dastuurkii baa hor imaanaya sharcigii baa hor imaanaya wuxuu socdoon meel la haysan baa hor imaanaya diyaar uma aha waxaan marka ku dhihi lahaa madaxweyne Xasan Sheikh waxaad fadhi ku heli karto fadal ha ku raadin fadalkaas waxaa dhici karta nimankan dhalinta yaroo kale inaysan aqoon waa fardaha lagu dagaalami jiro teknik ahaan jire boorka iyo fadalka ay kicinayaan fadal iyo colaad ha ku raadin waxaad fadhi ku heli karto madaxweyne inta marka reer gado waxaan oran lahaa nabad baad haysateen relative oo aad iska fadhideen dowladnimo iyo fiicnaan iyo horumar ba helinine dad iska fadhiya oo iska jooga oo qorraxdu u soo baxdo oo u dhacdo oo nabad haystaad haydeen intaas xubin bay haydo ciyaarba ma haro nabad wax ka weyn uma jiraan maanta marka waxa idinku taagan kan baa bedelay kan aan qoray maalin walba mid idinka ahaa la bedelaa mid cusubna waa la magacaabaa arrintaas waxay u xuub dilaacsan kartaa oo aadi kartaa inaad ku dirirtaan idinku inaad isbishaan inaad iska bilowdaan oo idinku dirirtaan waa idinku iman kartaa waxay kaloo dhali kartaa nabadii idinku meegaarsanayd oo aad isaga dhex joogteen iyadiina qas iyo dagaal iyo dhib inuu idinkaga yimaado hawlahaas oo dhan baa idinku dhici kara meesha aad u socotaana Jubbaland inaad burburisaan in la idin adeegsado idinma qabato idinka Jubbaland baa tihiin qaranka Soomaaliyeed iyo dowladnimada iyo midnimada iyo gobonnimadana inaynu wax ka dhisno waana la ka rabaa laakiin wax waliba waxay ku dhismaan run bay ku dhismaan xaq bay ku dhismaan xalaal bay ku dhismaan mas'uuliyad la qaado yay ku dhismaan waxa weeye marka haddaan intaa la helinayaa mas'uulka haddii intaa la waayo maamulka jira oo dowladnimada oo qarannimada yaa mas'uuliyadaas qaadaya waxa weeye marka waxaan shacabka Soomaaliyeed